الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين. ولا ليال وحين ربنا هل كان نكبل لونا محاضرة aan ugu magac darnay iftiiminta ahkaamta ku saabsan soonka. Muhaadaradan waxaan uga hadli doonaa biinillahi tacaala ahkaamta ku saabsan soonka. Muhaadara inta aan ku guda jirno waxaan ka hadli doonaa ilaa 8 qayb. Qaybta koowaad waxa weeyaan mafhuumu siyaami wa fadaa'iluhu wa xigmatuhu. Soonka mafhuumkiisa iyo waxa uu yahay xagga luqadda iyo sharciga maxaa loo yaqaanaa, fadliga uu soonka leeyahay iyo xigmada soonka loo jideeyay. qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa biinillahi tacaala maraatibu siyaami wa aqsaamuhu. soonka intee darajo ama heer buu kala yahay imisoona u qaybsamaa. qayb saddexaad waxaan uga hadli doonaa biinillahi tacaala shuruudu siyaami, soonka shuruuda uu leeyahay. qaybta afraad waxaan uga hadli doonaa biinillahi tacaala arkaanu siyaami wa sunanuhu, soonka tiirarka uu leeyahay iyo sunnooyinka soonka uu leeyahay. qaybta shanaad waxaan uga hadli doonaa biinillahi tacaala mubaaxaatu siyaami wa makruuhaatuhu, soonka waxyaabo la banneeyo iyo waxyaabo aan wanaagsaneyn oo soonka in la yimaado aysan habboonin oo la kahdo. qaybta lixaad waxaan uga hadli doonaa mubdilaatu siyaami, waxyaabaha soonka burinaya. qaybta toddobaadna waxay noqon doontaa biinillahi tacaala masaa'ilun haama mutacalliqun bilmufdiraati, masaa'il muhiim ah oo ku saabsan waxyaabaha soonka burinaya. qayb sideedaadna waxay noqon doontaa مسائل هامة متعلقة بقضاء الصيام، مسائل مهمة وكسابسا صنكي تجسل وقضين هيا إن شاء الله تعالى. قيبها أيان وهل الدونا محاضرة أنو بحني افتيمين تأحكام تكسابسا صنكا. هدي قيب تكواد أنو قالنه وحن وهل الدونا مفهوم الصيام وفضائله وحكمته. صنكا مفهوم كيسا محوية هي حق اللغة محلو يقانا فضل صنك أولي هي سيدو كلا حكمة صنك لو جديي. haddii aan ku hormarno soonka tacriiftiisa ama macnayntiisa. soon waxaa la yiraahdaa luqa carabiya al-imsaaku wal-kafu 'an shay, in la afhaysa lagana joogo shay. soon haddaad maqasho fi luqa carabiya waxaa loo yaqaanaa in la afhaysto lagana joogo shay. xagga sharciga soon waxaa loo yaqaanaa al-imsaaku 'an al-muftiraati, waxyaabaha soonka buriyo oo laga afhaysto min duluuci al-fajri, waaga markuu u bariyo ama salaada markay dhalato laga soo bilaabo ilaa quruubi shams, cadceeda dhicideed ilaa laga gaarayo. laakiin maxaa loo sameeyaa biniyati ta'abbudi lillahi tabaaraka wa ta'ala, idoo la niyeysanaya ilaahay la caabudayo. waxa weeyaan soonka xagga sharciga waxyaabaha soonka burina in laga fogaado laga bilaabo markay salaad subaxda dhalato ilaa ay qoraxda ka dhacayso, idoo waliba la niyeysanaya ilaahay la caabudo. fadaa'ilu soomi, soonka fadliga uu leeyahay. soonka fadliga uu leeyahay waxa tusinaya soonka Allah ba isku idaafeeyay subhanahu wa ta'ala. idaafayntaas alla soonka isku idaafeeyna waxay tahay soonka oo qiimo iyo sharaf loo yeelay oo qadarkiisa kor loo qaaday, iyo in soonka ajirkiisa uu weyn yahay in la isbaro. rasuulullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asoo xadiithul qudsi noo warinaya, qaala allahu tacaala, alla wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama lahu ila asiyaam fa innahu lii wa ana ajzii bihi. kullu camal ibni aadama, ibni aadan camalkiisa oo dhanba lahu asoo u sugnaaday illa siyaama soonka mooyaane, fa innahu soonka lii anuu ii sugnaaday wa ana anigna ajzii bihi anaa ka abaalmarinaya. soonka anuu ii sugnaaday aniga ayaa ka abaalmarinaya buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. waa xadiis saxiixu bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray. riwaaya muslimna waxay aheeday kullu camal ibni aadama yudaacafu alxasanatu 10 amhaaliha ilaa 700 dicfin. qaala allahu caza wajalla ila asawma fa innahu lii wa ana ajzii bihi yadacu shahwata wa dacamahu min ajli. riwaaya muslim waxay leedahay kullu camal ibni aadama, ibni aadan camal kasta uu sameeyo yudaacafu waa loo laba jibaaraa, alxasanatu halkii xasana 10 amhaaliha tobankeedo kale bay noqonaysaa. halkii wanaagoo samayso toban ayuu isku bedelayaa ilaa 700 dicfin,
ilaa laga gaaro 700 oo laalaab. Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala illa sawma soonka mooyaane fa innahu li soonka aniga ba iskale wa ana ajzi bihi ani ayana ka abaalinayo oo ka abaalmarinaya yad'u shahwatahu waxay naftiisa u baahneed buu ka tagi wada'amahu raashinkiisa buu ka tagaya min ajli an daraaday maadaama aniga daraaday oo uga tagay waxay naftiisa ay jeclaaday aniga ayaa ka abaalmarinay buu Allah subhanahu wa ta'ala sababtoo ah qofka inuu sooman yahay ilaahay baa garan kara subhanahu wa ta'ala qofku waxa dhici karta inuu rawaan soomanahay anaga xogtiisa oo samoogin ilaahay baa garanay subhanahu wa ta'ala hadduu wax iska soo cunay ama wax iska soo cabay cid ilaahay ahayn oo ogaan karta ma jirto soonka ilaahay baa la socday subhanahu wa ta'ala ilaahay baana ka abaalmarinaya culimadu waxay sheegaan wajiye ama qaabab aad u badan oo ku saabsan xadiiskan macnihiisa iyo sababta soonka fadligan gaarka loo siiyay cibaado la sameeyno dhan ilaahay baa iskale subhanahu wa ta'ala salaadi zakadi xajki sadaqada la bixinay waxa dhanba ilaahay baa iskale subhanahu wa ta'ala oo asiga baa loogu dhawaanaya laakiin soonka maxaa ilaahay subhanahu wa ta'ala isku idaafiyay qaar culimada kamid waxay yiraahdeen soonka riyaa kuma dhici karo sida qeyrkiis riyaa uu dhici karo qofka uu dukanaya soo dukanaya waa loo jeedaa laakiin qofka sooman soonkiisa lama arkahayo culimada qaarna waxay yiraahdeen waxa la dhihi karaa soonka ajirka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay waxa gaar la ah Allah subhanahu wa ta'ala culimada kale waxay yiraahdeen waa cibaado Allah agtiisa loogu jecel yahay soonka waxa lagu tiriyaa acmaasha ugu fadliga badan maxaa yeelay waa amal wanaagsan oo wax lamid ah oo jirin abi umama al-bahili radiyallahu anhu warda ayaa wuxuu yiri asoo rasuulka la hadlaya qultu ya rasuul Allah murni bi amrin yanfa'uni Allah bihi rasuulka waxaad ifarta arin ilaahay ugu anfac subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu yiri alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu soom baan ku ogahay wax lamid ah ma jiro waxa soo saaray xadiiskaasi imaam ahmed iyo nasaa'i imaam al-albani rahmatullahi alayhi xadiiska saxiix uu ka dhigay soonka fadhiga uu leeyahay waxa kale kamid walaalayaal asiyaamu junnatun min shahawati ad-dunya wa 'adab al-aakhirah soonka wuxuu gaashaan ka yahay oo qofka ka ilaalinaya oo wiqaaye ugu yahay adduunyada jaceelkeedii sidoo kalena cadaabka aakhira qofku uu ka badbaadinaya junna bimaana waxa weeyaan waa gaashaan oo adduunyada buu ka ilaalinaya aakhirna uu ilaalinaya qofka muslimka markuu uu soomo oo alla dartiina uu soomo adduunyada dhexdeeda inuu ku dhaxdhaco wax naftiisa jeceshay macaasi wuu ka nabadgalaya aakhirana cadaabka ayuu ka nabadgalaya rasuulka alayhi salatu wa salaam wuxuu yiri asiyaamu junna fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatama falyaqul inni sa'imun marratayn wuxuu leeyahay rasuulka alayhi salatu wa salaam asiyaamu junna soonka waa gaashaan fala yarfuth qofka yuhmaati aflayaada sameeynin wala yajhal jahl yusameeynin wa in imru'un qatalahu hadu qof la dagaalama aw shatama ma aflagaadee waxa dhici karta qof inuu ku caayo adigoo sooman ama ku aflagaadeey wuxuu rasuulka alayhi salatu wasalaam falyaqul inni sa'imun marratayn laba jarha ku celiyo oo hay yiraahdo anigu waan soomanahay oo faraha iga qaad mar hadaan soomanahay waxa adiga sameeyno kala ma sameyn karo afkii waxaan ka dhowraa waxun inuu ka soo baxay xadiiska waa sahih imaam bukhari ayaa soo saaray soo ka nabigu wuxuu yiri asiyaamu junnatun wa hisnun hasinun min an-nar soonka waa gaashaan waana dhufaysa adag oo naarta lagu gabanayo xadiiska waxa soo saaray imaam ahmed imaam al-albani rahmatullahi alayhi xadiiska xasan buu ka dhigay soo kala soonka fadhiga uu leeyahay waxa kamid ah yatahaqqaqu bis-siyami ajru sabri soonka sababtiis ayaa waxa ku sugnaaday baaliri qofka sabr ajirkiisi sababtoo ah waxa leeyahay soonku waxa ku kulmay saddexdii nooc ee sabr saddex nooc sabr waxa weeyaan as-sabru ala da'ati illahi da'adi ilahi oo lagu sabro iyo as-sabru an ma'siyati illahi alla ku caasintiisa oo laga sabro was-sabru ala aqdari illahi tabaaraka wa ta'ala iyo in qadarki ilahi lagu sabro intaas oo dhanba soonki baa kulansaday baaliri qofku markuu soomaa wuxuu ku sabrayaa daacadii Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka sabrayaa xumaata inuu sameeyo wuxuu ku sabrayaa qadarka Allah subhanahu wa ta'ala oo u qadaray inuu soonkan waajibka uu la yimaado sidoo kale fadhiga soonka uu leeyahay waxa kamid ah asiyaamu kafaratun lil khadaaya wa dhunub soonka wuxuu kafaara gud u yahay khaladaadka iyo dambiyada kala dhaca soonka wuxuu kamid yahay walaalayaal acmaasha Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaafay khaladaadka aan galayna iyo dambiyada naga dhacayo rasuulullaahi muhammad alayhi salatu wa salaam wuxuu yiri fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة الرجل قفك في النبض وكفنه لو امتحانه ويانه في أهله الكيس أو امتحانيه ومال مالكيس أو كفنه وكو امتحانيه والنفس نفتيس أو امتحانيه
وولديه عرورتيسي وجاريه درسكيس او امتحانيه يكفرها الصيام صونك با waxaa soo dhan kafaaro u noqono baabiinaya wasalaatu salaada ba tirtiraysa wasadaqatu sadaqada la bixiya wal amru bil ma'ruf wanaaga oo la fara والنهي عن المنكر يحماته oo la iska reeba wa hadith sahih ma bukhari muslim ya soo saari hadithka macnihiisu waxa weeyaan bini aadamka ama insaanka maalkiisa baa lagu imtixaanaya arurtiis baa lagu imtixaanaya ehelkiis baa lagu imtixaanaya diriskiisa asila diriska baa lagu imtixaanaya waxa soo dhan inuu ku fidnooba ay dhici karto oo ugu mashquulo cibaadadii iyo alla ku xirnaashihiisi waxa inta soo dhan tirtiri kara waxa weeyaan qofkii inuu soomo oo soonka ilaaliya salaad inuu dukado sadaqada inuu bixiyo wanaaga inuu faro munkarkan inuu reebo soonka fadhiga uu leeyahay waxa kale kamid walaaliyaan asiyaamu yashfa'u li saahibihi yawm al-qiyamah soonku wuxuu u shafeecayaa saaxibkii soomi jiray maalinta qiyaamaha rasuulullaahi muhammad alayhi salatu wa salaam wuxuu yiri asiyaamu wal qur'aanu yashfa'ani lil 'abd يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رسولك عليه الصلاة والسلام الصيام صونك والقرآن إيا قرآن كبا يشفعان للعبد أدونك بأشفيع هيان يقول الصيام صونك بهلا يوحو ليهي ربي يو إني منعته وحن أنا ودي الطعام راشي إنو عنا والشراب إنو عبا بالنهار معناتي صونك هلا يوحو ليهي ربي يو أدون كان وحن كم من عيون ودي أنكهر استاغي مالنتي إنو راشين عنا وحن أو عبا فشفعني فيه إيو شفع إرقد أن وضع إله أقبل ويان ويقول القرآن كان وحو ليهي ربي منعته إله وحن ودي النوم هردد بالليل هبينك إنو هردب ودي وهبينك ودنبا قرآن بو أخرنيي أو صلاة الليل بو كجرا إلهي بو بريا سبحانه وتعالى فشفعني فيه إله يقول شفع بو لأسيقنا فيشفعاني مركاسي وشفعيان قفكي قرآنك أخرج جري وهبينك وسو جيدي ماننتين سوميي إراشينكي عبيدي وحي نفتس جعشهنا ألا درت أغتغي ماننت قيامان صون كانوا وشفعيا قرآن كانوا وشفعيا حديث كما أحمد يا سو ساري إمام الألباني حديث صحيح وكدغي صونك فضيق وليه وحاكا ولا كمد walaaliyaan waxa liiraada asiyaamu sabab min dukhul aljanna soonka wuxuu sabab u noqdaa jannada galideedii asbaabaha jannada lagu galo waxa kamid ah soonka jannadana waxay leedahay 8 albaab kamid ah waxa loo yaqaan baabu rayaan baabkii darganaanta ama baabkii cokanaanta baa loo yaqaan waana albaab ay ka galayaan dadka sooman oo kaliya markay jannada galahayaan nabiga calayhi salaatu wa salaam wuxuu yiri إن في الجنة بابا يقال له الريان جنة وحاكوية لألباب لو يقان الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ما لنت قيامة هدتك الصومن بألباب كاسكاليو لا يدخل منه أحد غيرهم إذن أيجا هنا كسو قلينا مجرى يقال وحال ليه هي ألبابك مركي لفرة أين الصائمون ذاتك السوم الجري السونك أحكام تيس إلى الجرى عوضي فيقومون ذاتك الصوناي وأهل الصائمين تأها وإستاقيان لا يدخل منه أحد غيرهم إذن أيجا الباب كجلي ماله فإذا دخل آخرهم متك أي وضب بهدو قالوا أغلق الباب والحرية فلم يدخل منه أحد عد كجلي مجرد الباب كاس ريان لو يقانو وحلو رواق يدك الصنع صنك إلى لني مركي أي جلاننا أحد أيجا هنا كجلي مجرو الباب والحرية حديثك وحديث صحيح من بخاري مسلم يا صاري رواية بخاري نوحي هذه في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون جنة وحي الله 8 الباب كمينا وحل موعب الريان دادك الصومن مويانه دادك لو كجلي مجرب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال صونك وحكمي دهليري أعماشا الله سبحانه وتعالى قفك لي ماذا وبلن قاعد إنه قدام دافعي أجر وين أوصيني الله سبحانه وتعالى وحيري إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى الله أكيد والصائمين والصائمات رجع الصومن يهوانك الصومن محيليهن مرك أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما الله سبحانه وتعالى سحود دياري دم دافي أجر وين وهلك وحنا كجرنينا دتك الصائمين تأ رجع دمر سيوليهن إني ليهن دم داف يأجر وين قفك الصومن وحولي الله فرحضات رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وحولي للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفضل فرح بفدره وإذا لقي ربه فرح بصومه وحوليه قفك الصومن لبا فرحت أو فرحيه مدى كوادو حويان مركو أفورا أفركيسو كفرحيا مدى لبادنو حويان
rabbigii markuu la kulma soonkiisa buu ku farxayaayo abaalka uu leeyahay iyo albaabka rayaan loo yaqaano oo loogu yeeraya daraadib uu la farxayaa culimadu waxay leeyihiin qofka markuu afuriyo farxid oo farxaya macnaheedu waxa weeyaan wixii mamnuuc ka ah maanta ayaa xalaal u noqdo u banaanaaday saas waa ku farxaya wuxuu kaloo ku farxi karaa qofka muuminka oo wanaagsan ilaahay baa cibaadada u fudeeyay Soomahan cibaadadaas maanta u gutayna waa ku farxaya miday doonto ha noqoto qofka Sooman wuxuu leeyahay farxad oo maalinta qiyaamahan oo farxaya markuu afuranayo oo farxayo fadliga uu leeyahay soonku waxa kaloo kamid ah qofka Sooman ducadiisa waa la aqbalaya rasuulullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri 3 da'awaatin mustajaabatin saddex alla bari ama saddex bariyo waa la aqbalaa waa la ajiibahaya da'watu saa'imi qofka Sooman alla barigiisa wa da'watul madluumi qofka laga gardarooday ee lagu xadgudbay ee lagu gabood falay habaarkiisa wa da'watul musaafiri qofka musaafirka alla barigiisa saddex duca ilaahay uu aqbalay subhanahu wa ta'ala mid waxa weeyaan qofka Sooman ducadiisa ilaahay uu aqbalaya hadduu naftiisa u duceeyo qaraabadiisa u duceeyo ehelkiisa u duceeyo diriskiisa u duceeyo muslimiinta guud ahaan u duceeyo ducadaas waa la aqbalaya waxa kale oo ducada la aqbalaya qofka laga gardarooday waliba si habaar weeyaan habaarkiisa waa la aqbalaya qofka musaafirka ahna ducadiisa waa la aqbalaya xadiisku waxa soo saaray imaam Bayhaqi iyo Tabarani imaam Al-Albani xadiisku uu saxiixiyay soonku wuxuu leeyahay fadaa'ishaas iyo kuwa ka badan insha Allah ta'ala muhadaran ku saabsan iftiiminta ahkaamta soonka waa inuu sii socod doontaa hada wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh